kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii koobaad warbixino aan kaga hadli doono furaha guusha. warbixinada oo joogto ah waxaa kula socon doontaan Gurmud Media wax walba xilligan oo kale. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe channelkan si aad u hesho qaybaha kale ee warbixinada. maanta waxaan ka bilaabaynaa qaybta koobaad oo ah waa maxay guusha. guushu waa himilo iyo higsi aad leedahay oo aad gaarto, mana aha mid ku timaada xagla laaban, sahal, fikir gaabni, hamiyari iyo samir yaraantoona. haddaba guushu waa shay cayiman oo la isla yaqaan, laakiin waxaa lagu kala tagsan yahay heerka guusha. qof wuxuu guul u ah ayaa qof kale u ah bar. bilowga guusha baldhigo isbarbardhiga labadan arday mid ahaan hamigiisa ugu sarreeya ee waxbarasho waa inuu shahaadada darajada koobaad ee jaamacadda ka qalin qorto. haddii uu gaarina ay uga dhigan tahay inuu guul gaaray, halka ardayga kalena hankiisu gaarsiisan yahay qaadashada darajada koobaad ee ugu sarreysa kana aflaxo. markaas qaadashada shahaadada koobaad waa iridda uu ka gelayo hamigiisa sare. guusha waxaa sargooya hanka, hiigsiga iyo humaagyada mustaqbaleed ee qofku meel dhigtay. markaas waxay ka dhigan tahay nin wax guul u ah ayaa kale u ah bilowga hayaanka guuleed uu hiigsanayo. sida caadada ah, dadka aad fikir wadaag tihiin waxay inta badan kaaga waramaan guul. haddaba wadada guusha ee qofka gaarsiisa inuu noolaado isagoo guuleystay ayaa qof kale inay u mari weydo suurtagal tahay, waayo waxaa jira kala duwanaansho badan oo dadka dhexdooda ah. hamiyada qofka uu ku fikirana waxaa u muuca weyn inuu guuleysto if iyo aakhiraba. weligaa miyaad aragtay cille waxaan rabaa inaan guul dareysto? mase la kulantay cid raadinaysa wadada guuldarrada si ay u guuldareystaan? jawaabaha su-aalahaasi waa maya. dadka qaar waxaa dhacda inay baadi goobaan wadada ay maraan kuwa guuldareystay si ay iskaga ogaadaan oo ay iskaga baaraan jidkay qaadeen. waxaynu oran karnaa taasi waxay ka dhalatay baqasho ay ka baqayaan guuldarrada. dadka mar walba guuldareysta waxay u kala baxaan laba qayb. kow, markay guuleysan waayaan dad isdhiiba, nolosha ka dhaca, han iyo hiigsi dambena yeelan. iyo qaar markay guul dareystaan wax ka barta, ogaada qaladaadka ay sameeyeen si ay u saxaan, waxayna dardargeliyaan dadaalkoodii ku jihaysan inay mar uun guuleystaan. dadaalkaasina waxay isku dayaan iyagoo rajeynaya inay guusha u dhowdahay. waxaa mudan in la tilmaamo sidee lagu gaari karaa guusha. waxaan ku gaari karnaa iyadoo loo maro wadooyinkan: dejinta hami iyo higsi, inuu qofku barto waxyaabaha uu u baahan yahay inuu sameeyo si uu u guuleysto, iyo waxyaabaha ka hor istaagi kara guusha. waa inuu joogteeya oo ku dadaalaa hayaanka ugu jiro guusha. waa inaad hubisaa kolba inaad haysa hilinka iyo toobiyaha aad u maraysa guusha. waa inaad u samirtaa hadimooyinka kugu gadaaman jidka guusha, oo haddii aad dhib dareento aad u dulqaadataa. waa inaad niyad samaan iyo tala saarasho alleh aad la timaadaa. guusha markaad gaartana aad ilaahay u mahadnaqdaa oo aad ka dheeraato kibirka iyo wixii la mid ah. waxaa la isku raacay in guusha dhabta ah ee waaraysa ay tahay guuleysashada. allah subxaanahu watacaala ayaa qur-aankiisa ku sheegay qofka guusha dhabtaa gaaray inuu yahay qof la dhaafiya naar ama aan gelin naar, jannaduna hoy u noqoto, kaas ayaa guuleystay. maalinta aakhiro hal miisaan ayaa yaala oo qof kasta camaladiisa adduunyada lagu miisaamayo. waxaa kaloo ilaahay noo tilmaamay nolosha adduunyada inay tahay mid la qalday. muhiimaddu waxaa weeyaan inaad ogaato micnaha iyo ujeeddada aad u nooshahay ee aad adduunyada u joogto. haddaad u fiirsato dadka nolosha aan fahansanayn, waxaad arkaysaa iyagoo nolosha ku guuleystay wax guul ahna gaarin. astaama ayay leeyihiin dadka guuleysta ama kuwa leh awoodda ay ku guuleysan karaan, waxaana ka mid ah: kow, isbeddel jecel. dhammaan dadka nolosha horumarka ka sameeyey mid kastoo noloshiisa baaro waxay naftooda ku qanciyaan inuu isbeddel waajib yahay. waxay hoos iyo korba dadka codkoodu gaaro ugu sheegaan in isbeddel loo baahan yahay. waxaa mararka qaar dhacda in lagu arko qof qaldan, balse waa wax nolosha ku caadiya. nebiyullaahi maxamed ayaa tusaale fiican u ah, iyo dhammaan dadka nolosha horumarka ka sameeyey mid kastoo noloshiisa baaro. labo, humaag iyo qanaaco. isbeddelka nuuca uu noqonayo dhammaan dadka nolosha ka sameeyey horumarka waxay ku qanacsan yihiin inay gaaraan meel ka fiican halka ay joogaan. dhammaan waxay madaxa ku haystaan sawirro ka turjumaya nolosha ay geediga ugu jiraan, waxayna markaad la sheekaysato ama aad akhrido buwaagta taariikh nololeedkooda arkaysaa
riyo waqti ay u soo jeedeen, taasi oo adiga kuula muuqata hawo balse isaga ula muuqata xaqiiq. waana tan dhaxal siisay ku adkeynta nolosha ay rabaan. dadaal iyo karti dheeraad ah dhammaan dadka wax soo kordhiya ee ku xeeran, hadday noqoto sheekh iyo shariifba, mid kasta wuxuu goostay wixii uu beertay, mid kasta wuxuu ku nooloonayaa habeenkiisii iyo maalintiisii intuu gashaday, taasna rag iyo haweenba kala geeyey cirka iyo dhulka. 4 go'aan iyo xog saarid. maxaa jira qof meel gaara oo aan dadka fikirkiisa ku qancin? xasuuso dhacdadii cajiibka ahayd ee suubanaheena salaatullaahi calayhi wasalaam lagu yiri in adeer hubka dhig, aan ku siino waxaad rabto sida suldaannimo. intuu aamusay ayuu yidhi, walle haddii dayaxa iyo cadceedda bagacan la ii saarayo inaanan ka tegin waxaan ku taaganahay. dhammaan dadkii nolosha macnaha ku sameeyey waxay ahaayeen kuwo ku adag waxay rabaan, kuna qanacsan fikirkooda nololeed. 5 samir iyo dulqaad. u fiirso dadka wax ah ama aad farta ku fiiqdo ee noloshooda ku xiran. meel fog ha aadin ee eeg dadka xiriirka tooska ah la leh nolosheenna. qof habeen ku gaaray nolosha uu gaaray ma jiro. qof saacadaha tiriyey si uu u bedelo nolosha uu rabo, balse qof kasta wuxuu horay waqti dheer isagoo u muujiyey samir iyo dulqaad xad dhaaf ah. waana sababta nabiyullaahi maxamed ugu lahaa saxaabigii yidhi, alla noo bari in dadkan ciqaabayo uu naga kaafiyo. samra ilmo yariisow, ballantiinu waa janne. taasi waa macnaha samirka iyo dulqaadka. 6 xirfadda maamulka waqtiga. dadkani waxay si wanaagsan u marayaan waqtigooda iyagoo ka faa'iideysanaya qabashada waxyaabaha gaarsiiya guusha, waxayna ka fogaadaan luminta waqtiga. 7 iskaashi. dadka guuleysta waxay si fiican u kaashadaan oo ula tashadaan dadka ku xeeran sida xaasaskooda, saaxiibadooda iyo dadka hiigsanayaan. daawadayaal, waa naga intaa mawduuciinii ahaa waa maxay guusha. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho warar xaqiiqooyin ku saabsan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. riix calaamada gambaleelka si ay kugu soo dhacaan wax kasta oo aan channelkan soo gelin.